sawirka idiin muuqanaya waa abwaan cabdi sugulle loona garan ogyahay abwaan sooraan oo ahaa riwaayad jilaa weyn caana ka ah dhammaan baraha bulshada ee Soomaalida geyga ee degantaha iyo qaarka dibadda jira intaba xilli uu soo jeedin jiray riwaayado ila qosla barnaamijyo wacyigelin ah oo aan ku xasuusano riwaayado badan oo asiga iyo abwaanka kale ama shaatirista si kastoo aad u garanayso jawaan oo kasoo muuqan jiray inay halkaasi ku soo jili jireen riwaayada qiimo badan oo dadku wacyigelin u ah qaarkoodna tilmaamaya waxyaalo aad u muhiim ah ayaa haatan ku xanuunsanaya gudaha maamulka Somaliland magaalada Hargeysa ee magaalada madaxda isla Somaliland waxa ka soo muuqday asigoo hospitaal ku jiro isla markaasina aad u dhibaataysan oo xaaladdu ay tahay mid caafimaad darro aad u baahsan ay ka muuqato bulshada Soomaaliyeed ayaa laga codsaday goob kasta oo ay joogto waxa ugu weyn oo qofka lagu saacidi karana ay tahay inaad u duceyso ducadu ayaa ka muhiimsan waxqabadka taasi ayaan ku waaninaynaa inay u duceeyaan abwaankan in Allah uu xaaladan ka soo bixiyo uu caafimaadkiisa si taam ah u helo insha Allah sidoo kale dadka Soomaaliyeed ayaa dabacad waxay ka dhigteen qofka inta uu xanuunsan yahay in aan wax loo qaban kaliya marka uu geeriyoodo inay wax u qabtaan oo geel iyo xoolo tiro badan halkaasi ay ku qalaan hase yeeshee beddelkeeda ayaa laga doonayaa in qofka inta uu nool yahay xayga uu yahay oo sariirta saaran inay wax qabtaan oo garab ay siiyaan waxaan leenahay garab hala siiyo halo gargaaro insha Allah taala barnaamijkeena intaas ayaan ku soo koobeynaa intaan ku kulmi doono barnaamij aynkan oo kale waxaan leenahay abwaanka Allah caafiyo waxaan idin rajaynaynaa caafimaad qab iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh waan idinku soo gudbin doono channelkan waxaa leeyahay in alaala inta halkan ku cusub waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe dhahdaan like share comment si aad ula wadaagtaan asxaabta halkan ka maqan aad u gaarsiisaan isla barnaamijkan si loogu sii duceeyo abwaanka waxaan leenahay barnaamijka aad loo sii share garay waad mahadsantihiin ilaahantiinba nabadgelyo